indhihii basaaso buuro maaragtay buurama waa magaalo nabadeed, magaalo dalxiis, magaalo aqooneed, magaalada dahabka xilligan la joogo. Waxay ku taallaa goob istaraatiijik ah, waxay jaar la tahay magaalooyinku waaweyn ee ku yaala regionka. 5 caasimadood oo waxa weeyaan in isku mid ay wada jirto. waa Djibouti, waa Dirdaba, waa Harar, waa Hargeysa, waa Jigjiga. waana noqotaana magaalo dalxiiseed hamiga iyo qorshaha kale ee mustaqbalka. waxay leedahay mustaqbal wanaagsan oo soo ay kobcayso magaaladu. muddadii 20 sano ugu dambeeyayna waxay bilaabantay ilaa 4 jeer. waar joog ma taraafikada arkin casaan bay noqotay. sidoo kale waxaanu hirgelinay inta aan la shaqeynay Maayir Maxamuud Khayrlaasiye ee isagu nagu hogaaminayo inaan magaalada ka bilowno ishaarooyinkii ama traffic lightingkii oo sameeyna pilot projects oo ah 3 isgoys oo muhiim ah inaan ku xidhno ishaarooyinkii. isgoyska dhigta, isgoyska Harawa iyo isgoyska Soomane ama halkii daala ahaan jirtay. saddexdaaba way ku xidhan yihiin. waxaan u diyaarinaynaa buurama inay la kobacdo dawladda hoose oo ay kaba dheerayso adeegyada waayo meelo aan dawladnimadu ayna gaadhin in la gaarsiiyo la doonaya oo adeegyadii la gaarsiiyo oo wadadu ay sii tagto banaanka ama tuulada intaan magaaladuba iman iyo adeegyada kale looga baahan yahay. wadooyinka aan dhisnay buurama wadooyin waa laga soo dhisi jiray way burburi jireen oo inta badan waa dhaqan iska caadi ah waxa lagu leeyahay bari way burburaysaa. waxaanu garantii bixinaynaa wadooyinka aan dhisnay inay ka duwan yihiin wadooyinkii hore. dhowr qaab technically marka laga hadlayo dhowr qaab bay uga duwan yihiin. kow ka soo bilow carradaanu isticmaalnay kulli reebuurama waa markhaatibe kiin hadda way arkayaan. waa wado markaan carradii inaan garaacano haddii daamurkaan saari weyn xataa aan laga garanayn daamurkii oo sibir ah ayaanu ku isticmaalay oo tayadeeda la tijaabiyay laab la soo mariyay oo la hubiyay baanu isticmaalay. sidoo kale si aanu quality u sii hagaajino waxaanu kor uga qaadnay biyihii magaalada inaanu kor u qaadno oo halkii wadooyinkeena hore dhulka oolayeen ay biyaha iyo bulaacadu waxba dul marayeen inaanu kor uga qaadnay oo ka mid ah qayb tayadii hagaajinta tayada ah. anigu nicim ahaan boorama markaan imika arko naftu ha ka tagin bay igu tiraa iska joog bay igu tiraa naftu waayo quruxda sida loo qaabeeyey sida loo wanaajiyey laamiyadii sida la isku xidhay aroortaad aragtaba laamay baa la jaraya boorama. waxaanu dhisnay ilaa 12 wado oo magaalada dhexdeeda ku dhawaad 10 kilomitir oo laami ah oo nooca waliba casriga ah ayaanu ka dhisnay magaalada dhexdeeda. waxaa ka mid ah wadada Sheekh Cismaan, waxaa kaloo ka mid ah wadada laga soo galay magaalada marka laga imaanay dhinaca Hargeysa ilaa iyo Dhigta. waxaa ka mid ah wadada Jarka ilaa Dhigta iyadana. waxaa ka mid ah isgoyska Dhigta oo aanu qurxinay oo iyadana laami cusub dhignay say oo la jaan qaado magaalada. waxaa kaloo ka mid ah wadada Sheekh Ibrahim Bakaal, xaafadda Sheekh Ibrahim Bakaal ama nafaqada loo yaqaano
oon iyadana daamur casriga saarnay waxaa kaloo la mid ah waddada Sheekh Cali Jawhar oon iyadana ilaa iyo buurtaan gaarsiinay oo ku dhowaad ilaa 2 kilomitir aan iyadana daamur saarnay waxaa kaloo ka mid ah waddadii santarka ahayd ee dhex maraysay sariibada ee eelo hormaraysay iyadana oo aan roogii casriga ah iyadana aanu saarnay waxaa kaloo ka mid ah waddada geerashka carabka ilaa iyo taqwa oo aan ku xidhnay waddadii Sheekh Cali Jawhar aanu ku xidhnay baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah inaanu waddadan bisha casag marta ilaa xafiiska badhasaabka oo ugu talagalay inay sii socoto insha Allah sariibada dhex marto miskiid jaamaca ay ku xidhanto waxaa kaloo ka mid ah siiroogii Axmed Gurey oo isagana daamur casri saarnay oo qurxinay ayaa ka mid ah dhammaadkii 2020 ayaa waxaan ku fikiray inaan isku soo taago musharax noqdo golaha deegaanka degmada Boorama ujeedada ugu weynna waxay ahayd in Boorama iyo in la iskaarsiiyo magaalada Boorama ee koraysa magaalada aqooneedka ah iyo maamulka hay'adda dawladeed ee u shaqeysa ee mas'uulka ka ah magaalada oo aad boodaysa inay koreen nidaamka jira ee dawladda hoose ay leedahay iyo magaaladu marka magaaladii wax ka featureski dhammaan iyo adeegyadii dawladnimo ayaa ka maqnaa waxay gelisay markaa in damac iyo han xilligaas wuxuu ahaa manager buu ka ahaa bangi ka mid ah bangiyada dalka bangiyada ugu waaweyn maxaad magaalada deegaanka dawladda hoose tagay adigoo position ka jooga marka wuxuu nagu jawaabay magaalada anu vision baan ka leeyahay dadka inaan wax u qabtaan rabaa magaalada inaan qurxiyaan rabaa dadkeena aqoonyahankee leaderskiina haddii aan xilalkaa qaban weyno who else إن الله جميل يحب الجمال قروح السيدة بالعدة ووحي أنا نرشة كمتها بورا ما أد بيسكب بدشي وبالعدة وقروح بناتي ومقالوين كأدو كوريا كمتها ولما ما أرجع محوها وضوين كأوي عن اللي سكوح الحراء محوها ودك تاصل واحد كتوسيسا واحد سكوح لهم بالشدي أردن رانتي مساجد ده أردن بمركب وراك بلعبه ونود وأنا سكوح النارني وأجي هور الله بكرة إن موقت مامل كدولة دي بحب عبادات كمساجد ده أو والقوا عبادة سنية لكن ما أنت waxay isku xirnaaday dadkii muxuuha masaajidda ku tukanay waa dadkii suuqa joogay uun maamulkii iyo dadkii muxuuha culimadii oo isku xidhan oo wada shaqeynaya degmadeena Boorama gaar ahaan gobolka Awdal inay ku taalo mowqic istiraatiiji ah Soomaaliland aqoonsiga Israa'iil ay aqoonsatay waxa u sababa 100% oo ahmiyad gaar ah siinaysa yani سيلا إيريا يبطأ إلهي نسيي قرفة فعضا مقالة وين وحيكتها بورما بورما ميل حضارات اللي تقيهين أقول له وحيما بدنا آثار قديمة وحضارات بحنما صومالي ضاع يكون دوانتهاي دادك الدوان يكون نوريين دادك أسو هيلوبان نلوشي دي مناخية كلامة آيتو في عام qiimaha noloshooda qiimo fiican dadka ku nool dad ilbaxa oo la noolaan karay taas waxay soo weysaa in dad kala duwan yahay ay yimaadaan qofka marka magaalada noocaas ee geographically noocaas ee dadka noocaas ku nool yihiin ee xadaada noocaas qofka maayirka noqonaya horta qof nasiib leh qashinkii oo lagugu sameeyay dariiq adoo maraya meel aad ku rido kale mashruucan Boorama bilicsan aan ugu hogaaminay maayirka magaalada waa mid joogta 6 bilood ka horreeyay ahayd maanta se midhadhalkeedii baa la arkaa qashinka iyo nadaafadda guud ahaan muddada 7 bilooda waxa aanu ka saarnay magaalada in ku dhow 230,120 tan waxa la nadiifiyay 67 goobood oo ugu waaweyn yihiin 23 goobood oo ay ka mid tahay beerta dawladdu
oo aanu ku soo bandhignay bandhigii waxqabadkii maxaa la yidhaahdaa ibaxidhkii 6 bilood ee magaalada nadaafaddu ka socotay. waxaa qorshaysan in beerta dowladda amba seeraha loo yaqaanay Boorama in laga dhigo beer lagu nasto oo ay magaaladu yeelato. sidoo kale magaalada waxaanu ka saarnay dhagax dhan 2400 oo tan muddo 2 bilood ah. mashruucaasoo loogu talagalay in wadooyinka dhagaxa yaalla iyo jidadka tuulan in lagaga saaro magaalada lagu nadiifiyo si bilicda magaalada Boorama kor u qaado. hadafka ugu weyn ee hiigsiga aan la rabo magaaladan waxa weeyaan inay noqoto magaalo nadiif ah oo waxa weeyaan xilli walba u furan inay dadka soo dalxiisay soo dhaweysa. si gaaraaniyo waxay hoos yimaadaa arrimaha dhulka iyo khilaafaadkooda. qorshaha ka hirgeliyay degmada Boorama aanu u dhignay ama siyaasadda imika aanu ku hogaaminayno khilaafaadka dhulka iyo xalkiisa in maanta degmada Boorama qorsheedu u diyaarsan yahay kuna shaqeeyaan qof kastoo jaga kule degmada Boorama inay u xifdisan tahay adduunyada meel kasta joogtana aad adigu jagadaada maamulan karto. satellite systemku kugu xidhan tahay jagadaadu ama Africa joog ama Asia joog ama America joog ama whatever adduunyada meeshaad ka joogtaa halkan joogo maanta wax maran oo dhulka ay ka galayay ma jiro. isbeddelka iyo horumarka uu sameyn karo wadooyinka iyo horumarinta magaalada waxay wax weyn ka bedeshaa nolosha bini'aadanka muuqaalka moogtahay magaalooyinka soo jiidashada bulshooyinka kala duwan ee ku nool ama Soomaaliland ha noqoto ama guud ahaan geeska iyo caalamkaba. marka magaalo qurux badan oo bilicsan oo kaabayaasheeda kala duwan ay infrastructure-ku ay nidaamsan yihiin waxay fursad siisaa ganacsatada, waxay fursad siisaa kor u qaadida amniga, waxay fursad siisaa waxbarashada, waxay fursad siisaa ay dedejisaa moogta caafimaadka. magaalada noocaasa in yacnihii looga faa'iideeyo bulshaweynta ama businessyada sida hoteelada iyo businessyada yaryar oo dhanba in loo helo dalxiisayaal weekly imaada monthly imaada. maayarka hadda jooga ee degmadu iyo aniguba aan wada bilownay barnaamij 7 soconayay oo Boorama Culture Film Festival aan u bixinay. sanadkan 2026 aan rabno inuu 7 cisho isku xiga u noqdo oo ka dheeraado kii hore. saala ajligeed xaggii entertainmentka magaalada in yacnihii kor ugu qaado. anigu markaa aqoontaan u leeyahay Maayar Maxamuud Sheekh Ibraahim oo aan isku garanay for decades isku jaamacadahayn in badan soo wada shaqeynay meelo badan ka soo wada shaqeynay. waxaan ku aqaanaa shakhsi innovative oo waxaan uga jeedaa ay tahay shakhsi maalin kasta ama muddo kasta wax cusub oo la imaan kara. taasina runtii waxay ka muuqataa guulaha la taaban karo magaalada Boorama ka fuliyey. waa aragtaano sida Taalada Axmed Gurey oo waxay ahayd mar hore lagu dhiirado runtii uu isagu la yimid. waxaana muujinaysaa inuu yahay yani astaantaan ku sifeynaya inuu innovative yahay runtii. samee badan oo xagga technology-ga aan dhisnay e-governance-ka ama teknolojiyada oo aad aniga ahaan kala shaqeeyay wax badan sida programka sharciyeynta dhulka oo kale. markii hore manual marayay laakiin imika systematic way systemka dhalashooyinka birth certificate-ka loo yaqaano kan marriage certificate-ka guurka systemka bajaajyada sida loo maamulayo daily collection-ka loo qaadayo oo soo galaya xagga dakhliga iyo cashuuraha. systemyo badan it's more like waxay u egtahay inaan governance-kii dowladda hoose gebigaba systematic way aan u bedelnay. haddaan nahay qurba joog iyo haddaan nahay qulqul joogba
inaa maxay ahayd sida uu maayirku ugu dadaalayo iyo intii kale la shaqaysaaba ay ku dadaalayso inaguna aynu lexajeclo ugu yeelano oo aynu ilaashano dadka qurbo inay soo maalgashtaan dhulkooga maasha allah magaaladu waxay magaalo noqotaa markii laamay la sameeyo gabadha maqan ama wiilka maqan ama ninka hantida haysta waddankaba joogaaba inuu isna fooqiisa meesha ka taago guri qurux badan ka sameeyo magaalada waa isla egaanaysaa markaa Boorama waxay ku socotaa dhabbadii horumarka garashadu waa muhiim in yacnihii developmentiga iyo innovationka iyo in laisku xidho qurbo jooga iyo qolqol jooga si investment magaalada loo keeno looguna soo dhiiran karo markaad hesho maamul lexajecle kale maxay ahaydeen degmadiisa ayaa maxay dadka kalena ay kusoo hirtaan Boorama waxa weeyaan waxaan u diyaarin doonaa inay noqoto goob u diyaar ah in la maal gashan karo oo ay iska kaashadaan dawladda hoose iyo waxa weeyaan dadka maal gashanaya ama qurbo joog ha noqdaan ama waxa weeyaan qolqol joog ha noqdaan waxyaabo mashaariic fara badan oo la iska kaashan doonaa jira annaguna waxaan u diyaarin doonaa dhulkii iyo facilitationkii dawladnimo ay u baahan yihiin waxaana abuuraysaa waa objectiveka kale aan leenahay dhalinyarta magaalada la doonayo waxa weeyaan inaan shaqo abuur badan sameyno Booramana waxa dadka joogaan inta badan dad skillful ah aqoon leh waanan u baahannahay inaan iyaga iyo isla kaashano awoodaha aan soo sheegay in aynu abuurno Boorama ka qurux badan dhigeeda dadka imanaya dalxiiska ay ka badan yihiin ka nadiifsan ka cagaaran waxa weeyaan lagu raaxaysan karo